صدى اللياب كله هيستا كفتن sanadku waa 1971 waxaa la joogaa magaalada Muqdisho guriga fanaanada Hiban Nuura oo uu fadhiisan jiray mulaxankii weynaa ee Cabdikariim Faarax Qaarayjiir gabar dariska ahayd ayaa u imaatay waxayna uga sheekaysay qiso la yaab leh waxay sheegtay inuu qabanin darawal ah oo ka howlgali jiray wasaaradii gaadiidka mushaarkiisuna uu ahaa 350 shilin inta kadibna uu shaqo ka helay dalka Sacuudiga sida ayuuna ugu dhoofay wadanka Sacuudiga ninkii nolol fiican ayuu galay mushaarkiisina waxa uu noqday 5,000 oo riyaalka Sacuudiga ah gurigii reerkiisu ku jiray oo iska koobna ayuu fillo u bedelay 3 baabuur oo ay laba basas yihiin midna carruurta waxbarashada lagu geeyo loogana soo celiyay ayuu dhisay xaafadii sidaasi ayay baraara ku gashay halka markii ay maraysay ayay gabadhii buhulyowday guri ay jaar ahaayeen oo nin agaasimo ahay lahaa ayaa uunsi uga soo carfi jiray xusuus dheer buu geliyaa uunsigaasi oo odaygeedii ayuu xusuusiyaa buhulyow ayay la golon gashay bishinta ayayna dhexda ka qaniintay oo indhaha ayay mirig ka siisay waxay ilowday nimcadii ay ku jirtay oo sun iyo waabay ayayba isku bedeshay wayna karaahday shaqada uu ninkeedu hayo inuu yimaado oo uu heliyeelo ayay door biday kalena weynaaday mushaarkii la soo diri jiray cidladiina waa ay xajin kari weyday in hees looga sameeyo ayay dalbatay fariintaasi oo lala baahiyo markaas ustaajiir sheekadaasi uu maqlay aad ayuu ula dhacay dareenkiisina waa isku bedelay dabadeeta waxa uu yeedhay abwaan Yuusuf aadan allaale oo ka codsaday inuu beedka koowaad ee heesta sameeyo ka labaadna waxa ku daray abwaan xasan ganay halka beedka saddexaadna uu ku daray abwaan cali sugulle sidaas ayuuna ku laxameeyay ustaajiir heestkii inta kadib waxa heesta inay qaado loo xushay fanaanada caanka ee Hiban Nuura balse waa ay ka cudur daaratay heestii wayna yara ceebsatay oo ma aysan qaadin 6 sanadood kadib gugii 1977 ayaa Hiban Nuura iyo koox ay ka mid ahaayeen waxay barnaamij ugu bixin dalka Nigeria markii la soo laabtay waxa hiba ku dhacday qisadii u eg oo lafteedaba soo abaartay ninay jacayl isku guursadeen oo ay xaamilo u ahayd ayaa ka dhoofay dibna loogama helin war iyo wacaal midna taasi waxa ay sababtay in Hiban Nuura ay dib u codsato heesta kaftan ee la yaab kale sidaasi ayayna ku qaaday Hiban Nuura heesta kaftan